in badan maamulka Saciid Cabdullaahi Dane ee Puntland waxaa lagu eedeyn jiray inay dalka Suudaan hub iyo calooshood u shaqaystayaal ay ka daabulaan magaalada Boosaaso oo ay gaartay ilaa iyo human rights-ka in maxkamadda Hague ee ICC runtii dacwada ay gaarto oo runtii waxa way dhibaatooyinkii ka dhacay iyo xasuuqii ka dhacay Suudaan oo ku lug yeeshay maamulka Saciid Cabdullaahi Dane waxaa hadda soo baxaysa in burcad badeednimo ay runtii waxa way shirkadaha imaaraadka ee insurance-ga inay hadda u shaqeynayaan oo markabkii lixaad hadda halkaa lagu haysto waxaa dhacday 2 maalin ka hor in markab ka yimid dalka Turkiga calanka Cameroon watay in runtii halkaa lagu qabsaday halkaana ay dawladda Turkiga gurmad degdega ay ku soo gaarsiisay marka waxaa isweydiin mudan maamulka maxaa falaaga ka dhigay oo runtii waxa waaye dhibaatada Soomaaliya iyo kala go'a Soomaaliya iyo dibaddaabiyada Soomaaliya dad mar walba qorsheeyo ay u adeegsadaan waa maxay su'aashaas dad badan bal ha isweydiiyaan waa maxay sababta maamulka Puntland ay ugu nugul yihiin dalalka shisheeye waxaa dhacday hadda ka hor maamuladii Saciid Cabdullaahi Dane ka horeeyay in ay Ethiopia dalkaas soo galiyeen waxaa dhacday in ay calan Ethiopia waxa way runtii ama ciidan Ethiopian inay dalka soo galiyeen marka su'aasha waxay tahay waa maxay danta ugu jirtaa inay dibaddaabiyaan Soomaaliya Soomaaliya waxaa burcad badeed ugu dambeysay problemkiisa 2016 ilaa ay hadda arrimahoodii waa laga nastay in badan waxaan la soconaa in shirkadaha ganacsiga iyo ransomka iyo dhaqaalaha sitood marka waxaa su'aasha ay tahay maamulka Puntland hadduu soo wax ka ogeen maxaa keenay mar walba inay burcad badeedda maraakiibta ay ku qabsadaan Xaafuun iyo Bareeda area-dooda maxaa mar walba keenay in Xaafuun iyo Bareeda mar walba maraakiibta lagu qafaasho haddii Puntland ama maamulka uu soo waxba ka ogeen maxaa u fududeeyay xageeysa ku soo noqdaan su'aasha nimanka marka burcad badeedda maraakiibta ay soo qabsadaan xagee ku soo xirtaan waa deegaan Puntland ku soo xirtaan Puntlandna waxay leedahay waxaana lagu siiyaa qarash inaan xeebaha ilaalino xeebihii ay ilaalinayaan qarashka ay runtii waxa waaye caalamka ay kaga qaadanayaan ama Soomaaliya waxa waaye runtii magacooda waxa waaye wax laga siinay maxaa la gudboon dawladda federaalka Soomaaliya inay arinta runtii ka qabato dawladda federaalka waxaa la gudboon in maamulka gibi ahaanba maraakiibta runtii aysan soo marin maraakiibta warning laga siiyaa liirada area-da ilaa iyo area-da waa meel halaq galeen ah ama burcad badeedda ay ku bahooday marka maraakiibta in digniin laga siiyaa marka waxa maraakiibta aan lagu qabsanaynin berbera Somaliland xeebaheeda lagu qabsanayn ee lagu qabsanayo xeebaha maamulka Puntland marka farba ku gudan marka waxaa cad in ay si toos ah ula shaqeeyaan nimanka insurance-ga adduunka waxa waa ka macaasha maraakiibta insurance lagu qaaliyo maraakiibta lagu qaalina waa kuwa Asian-ka ah markab Chinese ilaa hadda waxa lama qabsan markab European lama qabsan waa maraakiib ama Soomaali u socota ama maraakiib laga leeyahay dalalkan Afrikaanka ah waa Cameroon oo kale iyo ama Ghana ama Nigeria ama West African maraakiibtoodii waxa lagu dhibaatay halkaas marka runtii waxa waaye dacwada faraha badan ee Soomaaliya kaga timid biyaha Soomaaliya dawladeeda maxaa la gudboon marka dawladda Soomaaliya waxaa la gudboon inay waxa ku astayso maamul burcad badeed ah